وكما عبد الرحمن محمد حسين أدواء حلو عبد الرحمن أدواء وحا uu ku dhashay Muqdisho sanadku markuu ahaa 1974 waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee sare waxa uu ku qaatay Muqdisho 1996 wuxuu shahaadada koowaad ka diyaariyay jaamacadda caalamiga ee Afriqiya Suudaan kuliyadda sharciga iyo qaanuunka 1997 ilaa 99 waxa uu ka soo shaqeeyay iskuulkii Maxamuud Xarbi sanadkii 2003 wuxuu shahaadada labaad ka diyaariyay kuliyadda maareynta musiibooyinka macadka ka hortagga iyo maareynta musiibooyinka ee Khartoum 2003 ilaa 2006 wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay jaamacadda Simad 2010 waxa uu shahaadada labaad ka diyaariyay jaamacadda Islamic University of Malaysia kuliyadda siyaasadda 2010 ilaa 2015 wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda Simad intii Simad uu joogay waxa uu suura gashay inay noqoto jaamacad halka hore u ahayd maxad 2015 waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxay ahayd markii ugu horeysay oo lagu dhaxarko xukuumadda balse markii uu fadhiistay xafiiska waxa uu noqday wasiirkii loogu hadalhaynta badnaa xukuumadda waxaana lagu amaanaa kaalintii shakhsiyadeed ee uu ku lahaa dhismaha galmudug oo la oran karo waxay ahayd howl aad u adag waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah khudbadii uu jeediyay ergadii ansixinta dastuurka galmudug marka ma joogno waxaan rabaa inaan idiin sheego dhammaantiin akhyaarta meeshaan hadda fadhiso oo wujuudooda aad u aqaana in badan oo ka mid waxaan rabaa inaan idiin sheegno meel aan ku kufno ma taagno kufiddu option furan ma kufiddu option furan ma meeshaan maxaa ka furan in la baaso bas inaad baastiin horumartiin hore u socotiin bisaa ka furan waxa uu qayb ka qaatay damintii colaadda ka jirtay Gaalkacyo waxaana magaalada Gaalkacyo uu joogay muddo dheer si uu xaliyo colaaddaasi isagoo ugu dambeyn ku guuleystay intii uu joogay wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu dhisay gudiyada madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka sidoo kale waxay wasaaraddiisu baarlamaanka horgeysay sharciyada hay'adda qaxootiga qaranka iyo sharciga hay'adda maareynta musiibooyinka dhanka dhismaha maamulka Hirshabelle waxaa lagu sheegaa inuu ahaa shakhsigii midabada u taagay maamulka Hirshabelle dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa uu ka hirgeliyay deegaan doorashadiisa in ka badan 3 ceel oo ay dadka iyo dunyaduba cabaan dadka aqoonta u leh Odawaa waxa ay ku tilmaamaan ruux degan ku wanaagsan fagaara ka hadalka jecel inuu dhameeyo shaqooyinka uu qabanayo sidoo kale ay ku weyn tahay Soomaalinimada waxayna dad shacabka Soomaaliyeed aad ula dhaceen mowqifkii uu ka istaagay dhiibistii qalbi dhagax waxaan rabaa gudoomiye baarlamaanada sharafta leh ina Ilaahay hortiisa ku marqaati furo adinkoo fadhiya inaan raalli ka ahayn dhiibista qalbi dhagax oo golay dambi ay tahay ayna tahay cid geysatay la ciqaab ma aaminsani inay hadda nabad sugidda tahay ma aaminsani madaxdu inaysan ogeyn haddaysan ogeyn waa musiibo hadday ogaayeenna waa musiibo ka weyn waxaan rabaa inaan halkan ku sheego qalbi dhagax waxa ugu yar oo u tari kara waxay tahay qoyskiisa bil gunadeeda ka mid ah dhanka kale waa shakhsi lagu xasuusto garab istaaga dadka dhibaataysan waxaana ilaa iyo hadda shacabka xusuustooda aan ka bixin muwaadinkii ku dhibaataysnaa Burco oo markii uu daawaday noqday ruuxii uu horeeyay ee dhaqaale ku tabarruca taasoo suura gelisay in kadib siyaasiyiin fara badan ay lacag gaarsiiyaan marka laga soo tago waxqabadka iyo heerka waxbarasho ee Odawaa waxa inta dheer uu yahay ruux dhalinyaro ah waxayna bulshada ka soo jeeda Galmudug u arkaan inuu yahay shakhsiga kaliya ee isku keeni kara bulshada kala yardhowday ee reer Galmudug waxaana jira fariimo kala duwan oo ay bulshada reer Galmudug u dirayaan Odawaa iyagoo aaminsan haddii uu ku guuleysto wax badan ka qaban karo xaaladaha ka jira deegaanada Galmudug